qisu ka sheekeeyey nebigu nin meel maraya ayaa wuxuu maqlay daruurta korkeeda oo cod ka baxayo. codku markuu dhegaystay waxaa la leeyahay beerta hebel waraabi ayuu maqlayaa. dabeetana wuu yaabay. isagoo codkii ka yaaban ayay daruurtii socoto meel halkan ay ku da'day. dabeetana biyihii oo dhammi dhudhub bay soo raaceen. meel iliilada ayay biyihii soo mareen. wuxuu u yimi nin iliishii taaganoo beertiisa ku duduwaya. wuxuu ku yidhi yaa cabdallaahi masmuk, waar ilaahay addoonkiisiiyo magacaa. markaasuu yidhi hebel hebel baa la yidhaahdaa. magacuu ninkani maqlay buu sheegtay. maxaad ii weydiisay buu yidhio waxaan maqlay buu yidhi daruurtaasi oo la leeyahay beerta hebel waraabi. markaan soo dabagalayna roobkii adigunbuu beertaadii helay. iliishan yare adigu aad waddo un waa biyaha ka soo dhacay. meel kaloo roob ku da'ayna ma jirto. eniyo waxaad qabatay ii sheeg buu yidhi. maxaad samaysaa? nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey markaa ninkani wuxuu qabto. ninkani wuxuu yidhi wax kale ma sameeyo, beertan baan ka shaqeeyaayoo falaa. markay soo baxdo 3 qaybood baan ka dhigaa. qayb masaakiintaan siiyaa, qaybna aniga iyo carruurtaydaa cunna, qaybna beertaan dib ugu celiyaa buu leeyo shaqadeedii dambe iyo beeristeedii dambaan ka dhigaa. markaa ninkani wuu shaqaynayaa. shaqadii uu shaqeeyeyna inna wuu sadaqadaystay, inna xuquuqdii reerka iyo intan buu ku dabaray, inna beertuu dib ugu celiyey. shaqadaasi adduunye uu qabanayey ayaa ilaahay ugu abaalguday in daruurta la yidhahda kaa beertiisun waraabi. beerta hebel waraabi in la yidhaahdo. waxaa la yidhaahdaa boqorradii muslimiinta nin ka mid ah, hishaam ibnu cabdilmelik nin la odhan jiray, ayaa wuxuu kacbaduu yimi. markaasuu wuxuu la kulmay saalim ibnu cabdillaahi ibnu cumar, nin aabbihii iyo awowgii bay ahaayeen saxaabo. cabdillaahi ibnu cumar baa dhalay ibnu alkhataab. saalim buu wuxuu ku yidhi, saalim markaa waa nin caalimo culammada muslimiinta ka mid a, salnii xaajatan buu yidhi, waxaad baahi qabto i weydiisa buu ku yidhi. saalim wuxuu uga jawaabay innii la astaxyi min allaahi an as'ala fii beytihi hayra. waa boqor u soo bandhigaya maanta waxaad doontay weydiiso. dee dunidaynu maanta ku noole wuxuu is odhan lahaa qofka jooga fursad baad heshaye. haddiiba boqorkii uu ku leeyahay waxaad maanta rabto ii sheego waa ku siinayaaye, waa fursad weyne wax qabso is odhan lahaa. saalim laakiin wuxuu ku leeyahy waxaan ka xishoonayaa buu leeyahy ilaahay beydkiisa cid aan isaga ahayn inaan wax ku weydiisto. anigoo beytillaahi alxaraam jooga ilaahay cid aan ahayn inaan wax weydiisto waan ka xishoonayaa buu ku yidhi. boqorkii wuu iska aamusay. wuxuu la sugay intay ka baxayeen masaajidka. markii masaajidka ay ka soo baxeen ayuu yidhi al'aana salini xaajatak. soo baxnaya dee hadda maxaad u baahan tahay aan ku siiya, hadda baahidaada weydiisa buu yidhi. saalim wuxuu ku yidhi min xawaa'iji dunya min xawaa'iji alaakhira. ma waxaan ku weydiistaa baahiyaha adduunye mise baahiyaha aakhiro? boqorkii wuxuu yidhi bal min xawaa'iji dunya, anugu aakhiro shaqo kuma lihiye adduunka wax iga weydiiso. saalim wuxuu yidhi wallaahi maa sa'altu dunyaa man yamlikuha fakayfa as'aluhaa man laa yamlikuha. ilaaha adduunkani gacantiisa ku jirta ee hanta xataa markaan baryaya ilaahay adduunye ma weydiista buu leeyahy. mid aan waxba haysan saan adduun u weydiistaa buu leeyahy. ilaahay aakhiro iyo janno iyo naar inaan ka badbaadiya kaasaan weydiisanaya, ama adduunkan qiimo badan agtayda kuma leh. marka wuxuu u tilmaamaya uu leeyahy rabbigii dunida lahaaba ma weydiista adduunye ma adigaan ku weydiistaa buu leeyahy aan waxba haysanin. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qof dumar ah ayaa naarta ku gashay bisad mukulaal. bisad mukulaal bay qof dumari naar ku gashay. dabeetana nebigu wuxuu yidhi way xidhay oo waxay cuntana may siinin, manay sii daynin dhulkeeda deh u arsaaq tagtee.
markaa bisad bay toorjar garaysa halkaa bisaa ay xidhay kuwa dadka qadinaya maxaad u malaysa inta meesha ku xidhaa nafta isugu keenaya haddii bisaas la isku cadaabayo cagsigeeda wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin riwaayadka qaarkoodna gabadhba ku soo arortay zaaniyada ama xun ayaa iyadoo haraadan ku soo baxday ceel biyood dabeetana way ku dhaadhacday way ka soo cabtay markay soo baxday ay waxay dabadda ugu timi ey ciidda cunayo haraad daraaddeed haraadan waasay tiri kan wixii ahayo kala haya dabeetana dib baa ugu noqotay khufkeedii muuqu waa bahladan khufka ee cagta la geliyo mid ka mid ay intay biyihii dartay afka ku soo qaaday dabeetana waxay soo kortay meeshii way ka soo baxday way waraabisay nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uga mahadnaqay ficilkeeda ay samaysay oo dembigeedii dhaafay nabiyullaahi muusa waa la itixaamo waxaa la yidhi waxaa fircoon wax u sheeg fircoon buu la hadlay fircoon diintii waa rumaysan waaye bale isagaaba rabbinimo iyo ilaahnimo iyo wax sheegtay markii dambana xoog baan isticmaalayaa buu yidhi waxbaan dilayaa nabiyullaahi muuse mar kasta uu su'aal weydiiyo sida xaqaa unbuu ugu jawaabaa yaa cirka abuuray man rabu samaawaati man rabbuk buu yidhaahdaa wuxuu yidhahdaa ilaahay baa ah rabu samaawaati walard waa masxuur baa tahay buu yidhi ninkaagani nin la sixray ninkaaga boqorka saan ula hadlaya anna waxaan kugu arkaa buu yidhi mahbuur inaad tahay mid halaagsamaya inaad tahay buu ku leeyahy waa boqor iyo waa waxaa muu eegin kadib baa ilaahay yidhi guuree tolkaana kaxee wuu guureeyey habeen buu socday waaguu markuu bariyey ayay baddii yimaadeen xaggooda dambey eegeen waxay arkeen ciidamo aad u tiro badanoo fircoon soo wato marka iyagu waa dad kooban oo la gumaysanayey oo soo baxsaday habeen ka soo guureeyey dowladdii dhammayd iyo ciidamadeediina way daba socdaan xaggan ka horraysaana waa bad waxay ku yidhaahdeen innaa la mudrakuun waa layna haleelay layna soo gaadh bay yidhaahdeen layna qabay nebiyullaahi muuse wuxuu ugu jawaabay kalla inna maciya rabbi sayahdiin layma haleelin ma dhaci karto taasi buu leeyahy aniga macayga waxaa ah rabbigay isagaanay hanuunin doono subxaanahu wa tacaala isagaa jidii bixin u fiirso marka lagu eego maanka bini aadamkee dhow iyo qofka caadiga aan ilaahay iyo awooddiisa iyo qudradiisa rumaysnayn caqligiisa marka lagu eego xagganna bad baa ka xigta xagganna waxaa ka xiga ciidamo tiro badanoo aanay u babacdhigi karaynin qofkaasi wuxuu rumaysanayaa meel loo baxsadaa inaanay jirin ilaa xagganna bad baa kaa xigta xagganna ciidamadii ku eryarayay baa kaa soo xiga laakiin nebi muuse wuxuu arkaa waxaan oo dhammi makhluuqii ilaahay inay yihiin baddana in ilaahay leeyey fircoon iyo ciidankiisana in ilaahay abuurtay awood ka sarraysuu rumaysan yaho waxanba maamusha marka awoodda makhluuqu uma muuqatee awooddii khaaliqa u muuqata saa daraaddeed buu wuxuu ugu jawaabay kallaa inna maciya rabbi sayahdiin aniga ilaahay baa macaygaa oo i hanuuninaya ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu leeyahy waa u waxyoonna nebi muusaan uu waxyoonna oo maxaa loo waxyooday an idrib bicasaaka albaxra baa la yidhi usha badda ku dhufo waxaa laga yaabaa innaga haddii layna odhan lahaa usha badda ku dhufta inaano uli maxay bad ka taraysaa ul iyo bad ul bad lagu dhuftay waxay samaynaysaa ma muuqato laakiin cidda tidhi usha badda ku dhufo waayo waa rabu samaawaati walard waa ilaaha badda leh ee usha leh ee qawaaniinta fiisigiska isagu dhigay qawaaniintan fiisigiska aynu materialka ku adeegsanno ilaahay baa u dejiyey laakiin qawaaniintan ilaahay ma xukumto ilaahay awooddiisa qaanuunkani ma xukumo maadaama uu nebi muuse sidaa yaqiinsan yahay markii la yidhi usha badda ku dhufo waa ku dhuftay kamuu labalabaynin markuu ku dhuftay maxaa dhacay fanfalaq baa ilaahay yidhi baddii waa kala dilaacday fakaana kullu firqin ka tawdi alcadiim dhinac waliba wuxuu noqday
sidii buur weyn buu noqday. waxaa intaa ka cajabsan oo ilaahay tilmaamaya waddaa loo bixiyey طariiqan yabasa. bad haddii meel laga kaxeeyo waxaynu filaynaa de inay dhooba noqoto, ila waa meel biyo ku jireen. haddii xataa biyaha laga saaro waxaad rajaynaysaa inay dhooba noqoto. ilaahay wuxuu leeyahay nebi muuse iyo ciddii la socotay waddo engegan baanu u samaynay baa ilaahay leeyay. waxaa laga yaabaa dadka iyo faraska iyo wax ku liman lahaayeen haddii meeshu ay maxay qoyaan iyo dhiidhi iyo dhooba noqoto. ilaahay wuxuu leeyahay halkii baddu ahayd intaannu dilaacinaan waxaanu uga dhignay dariiq yabasa, jid engegan oo uu mara baan uga dhignay. qisadu markaa maxay tilmaamaysaa? iimaankiisu xadku gaadhsiisnaa, yaqiintu ilaahay ka rumaysnaa intay leekayd. ilaahay qur-aanka nebi kaluu inoogu tilmaamaya nebigaasiyoo gaboobay oo sheegtay sifaat ay adag tahay inuu ilmo dhalo. markaasuu dhanka kalena wuxuu sheegay xaaskiisuna inaanay ahayn qof ilmo dhasha oo iyana gabowday. haddana awoodda rabbigii buu yaqiinsan yihi. innii wahana alcadmu minni washtacala ra'su shayba. wuxuu sheeganaya ilaahay ow lafihii way dabceen buu leeyay, way jilceen. waxay culimmadan caafimaadka iminka sheegaan hormoniska testosteronka la yidhaahdo ayaa lafahana dhisa, ninnimadana kordhiya. haddii la waayo raggu nufaan buu noqdaa, lafuhuna way xorshashoobaan. saa daraaddeed dadku markuu gaboobay hormonada hoos u dhacaan, lafuhuna waa soo godgotaanoo wuu tallaabo gabaayo uu qof gaboobay buu noqdaa. markaa nebiyullaahi zakariya wuxuu sheeganayaa lafihiina inay jilceen oo dabceen, daadminis ninnimadiisii inay nuqsaantay, madaxuna inuu caddaaday, da'i inay u dhammaatay. laakiin muxuu leeyahy walam akun biducaa'i rabbi shaqiya. laakiin ilaahay baryadiisa mid ku hungooba maan ahay buu leeyahy. anigoo sidaasiya haddana ilaahay baryadiisa kuma hungoobo. ilaahay muxuu weydiisanayaa mid diinta ka dhaxlay in ilaahay siiyo. yaqiin bay ayuu aaminsanyay markaa, isagoo asbaabtii maadiga ahayd aanay agtiisa ka muuqan. waa imra'atii kaanat caaqira buu la tilmaamaya, haweenaydiisuna inay ahayd mid aan ilmo dhalin. haddana ilaahay wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala inuu sidaa ilmo ku dhalayo, haweentan inay sidaa ilmo ku dhalayso. ilaahu calaamadii yeelba yidho waxaa la yidhi 3 maalmood ayaad aamusaysaa dikriga ilaahay mooyaane hadalka kale aanu jiraynin. ilaahay yaxyuu siiye, ilmuu siiye. waxay tilmaamaysaa madaa iimaanihi bilaahi iyo kalsoonidu ku qabay inta ay laagtay. yaqiin ayay tilmaamaysaa. qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramayaa qiso qof dumara oo ilaahay tala saaratay iyo yaqiinteedii iyo iimaankeedu xadku gaadhsiisnaan. waa qofkii dumaree la odhan jiray haajara, nebiyullaahi ismaaciil hooyadii oo nebiyullaahi ibraahim xaaskiisa ah. kow ilaahay baa wuxuu faray haweenaydaasoo ummul ah meel aan daddeganayn inuu dhigo. mu odhanin ilaahayow xaaskiyo carruurta haddaan weliba wuu gaboobay nebi ibraahim oo ilaahay baryey in carruur la siiyo oo ilaahay ilmahan siiye. ilmihii yaraayee markaa hadda u dhashay ninkii gaboobay ee ilaahay ilmaha yar siiyey ayaa waxaa la yidhi ilmahan iyo hooyadiiba qaad oo waxaad geysaa meel aan cidid degganayn. waa meeshan hadda maka la yidhaahdo. maka markaa doox bay ahayd, 2 buuro ama buuro dhexdood doox ku yaalla, waan daddeganayn, degaan ba ahayn, biyana lahayn. ma odhanin ilaahayow saan meeshaa cidlada ah carruurta iyo qofka dumara u dhigaa. muu odhanin ee wuxuu fuliyaa markii ilaahay wuu soo kaxeeyey. haweenaydii oo ummul ah ayuu soo kaxeeyey. umushuna waa marka dumarku ugu jilicsan yihi. dabeetana halkii intuu dhigay ayuu wuxuu uga tegey qarbad biyo ah
iyo qarba timira in yaroo biyaa iyo in yaroo timira oo weel ku jira intay hayn kartaa timir iyo biyo la sidaa intee muddo intee lag bay dad hayn karaan wuu iskaga dhaqaaqay markaa haweenaydii way yaabtay waxay ku tidhi ibraahimow intay ka daba timi xaggaad nagaga tegaysaa ma meeshan aan dadba deganayn wax la weheshadaba meelaan lahayn intaad dakeentaad daga tegaysaa lamuu hadale uu iska socda su-aashii bay haddana ku celisay war ma meel aan cidiba deganayn wax la weheshadaano oo lin baad nagaga tegaysaa muu la hadale uu iska socda mar saddexaad bay ku celisay markii dambey su-aashii si kale u dhigtay waxay tidhi allaahu amarak inaad halkaa cidladaa intaad na dhigto nagaga tagto ma ilaahay baa ku amray markaasuu ugu jawaabay haa ilaahay baa wuxuu amray intaan idin qaado meel aan cidiba deganayn intaan idin geeyo inaan idinkaga tago waa amarkii ilaahay dabeetana waan fulinaya yaqiintaasuu qabaa haweenta tani iyana yaqiintaa mid ku dhadhow bay leedahay maxay tidhi idan laa yudayicuna hadduu arrinku yahay ilaahay baa yidhi halkaa inta la dhigo ha laga tago haddaa ilaahayna dayici maayo bay tiri baahan mayno mar haddii rabbi sidaa sheegay baahan mayno labadaa qof yaqiintooda qiyaas nebi ibraahimna ilmihii yaraaye uu ilaahay baryeye la siiyey iyo xaaskiisii intuu meel cidlaa dhigay inuu kaga tago liajli inuu ilaahay rumaysay oo ilaahay amray daraaddeed haweenayda tanina waxay leedahay wixii ilaahay ii amray haddaan fuliyo inaanan dhumaynin ama khasaarayn ama dhib ii soo gaadhin maan rumaysanay bay iyana leedahay yaqiintaasay qabtaa waa ka xadiisku sii tilmaamaya markaa muddo markay joogtay in biyihii go'een ilmihii yaraa jaanqaraaray gaajooday waxay siisay ay u weyday naaskii gudhay dabeetana ay istiri bal inna dad iyo wax lugaynaya inaad aragto dooxii hoose ay joogtay kor uga baxday oo buur fuushay markay waxba arki weyday haddana istiri bal dhanka kalena eeg soo dooxii haddana ka soo tallowdoo buurta kala fuushay muddo halkaa dhex carcarartay kadibna ilaahay subxaanahu watacaala malag u soo diray malakuljibriil dabeetana halkii dooxay yaraa ayuu ama cidhifta ama baalka ugu dhuftay ilaahay markaa biyo uga soo saaray biyihii bay istidhi xawd yar u samaysoo zamzam iyadoo leh gabadha tan ceelkii ilaahay markaa uu qoday ee iyada karaamadeediiya dhowr kun oo sannadood buu shaqaynayaa welina waa ceelkaa la cabayey zamzamka la ydhaahdo zamzamku waa ceel ilaahay qofkaa dumara ee yaqiintaa rumaysay ilaahay uu siiyey subxaanah wa tacaala innagana si laynoo xasuusiiyo qoyskaasi yaqiintiisa siiba qofkaa dumara iyo madaa iimaaniha birabbiha wa tawakuliha calayh inta ay ilaahay rumaysnayd ama yaqiinsanayd iyadoo layna baraya waxa layna yidhi xaj baa laydinku leeyahy xajkaa xajaysaan arkaantiisa waxaa ka mid ah halkii qofkaa dumare oroday inaa orodaan ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah baa ilaahay leeyahy safa iyo marwi ilaahay shaciirooyinkiisa loogu dhowaaday ka mid yihi oo safiya marwi waa xaggee waa labadii buurood ee qofkaa dumari oroday labadii buurood ee dooxa dhinacyadiis ku yaallay ee qofkaa dumari socotay ayaa ilaahay iyadoo iyada la xusayo magaceeda la reebayay ficilkeedii ayaa ilaa qiyaami saaca inta qof muslimi nool iyo xajaya dadku dhex soconayaan waxay tilmaamaysaa dadkaa yaqiintoodu xadkay gaadhsiisnayd waa mar kale ah nebi ibraahim laftiisa iyo wiilkii u dhalay ismaaciil ahaa markuu soo koray ee nin noqdayna ilaahay baa haddana yidhi gowrac dabeetana wuxuu rabay inuu gowraco mididuu soo qaato isagoo ilaahay amarkiisa fulinaya markuu ku dhaqaaqayna
إلهي بس سبحانه وتعالى لأن صدقت نبي إبراهيم واد رميسي وحلو فري دبتنا إلهي كبش عظيم أبو كفرتي غرايبته meesha ku jirta waxa ka mid ah wiil hadduu u bato dhowr iyo 10 jir ah oo sacyigu gaadhay falama balaga macahu sacya ilaahay ku tilmaamayo oo la leeyahay waa lagu biraynaya oo tale laga weydiinaya in la bireeyo waxay kula tay la leeyahay waxaan rabaa inaan ku gowracee oo leh وحي لغو أمري يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أبا والسماء وحي لغو فري إن شاء الله واحد يهلي دون تانيقو الصبرات كيستو قورع عاقبلا واحد الماميسا المهدي الطاعية عبادية إلهي لغو حدو حتى إنو قورع عاقبالي كرو والدكي هدو إلهواكو قورعيا وهدي محي سيدي للربي لو تربييي wadadii la rabayna la mariyay waxay kaloo tilmaamaysaa ilmuhu yaqiintiisu inay isagana xad ka gaari karto oo ah inuu aqbalo in la gowraco haddii tarbiyadii la siiyey tarbiya saxa tahay waxay kaloo tilmaamaysaa waxa ugu weyne waalidu ilma siiya inay tahay inuu diin baro آخر اللي نويدين ما يعرض في سكسكي ما أقول الثانية جامعة مكسر آخر اللي هي تأذي ولا حسابته ماي هذه وحل ولا حسابته ما يا آخره إلهي ما برت رسول كيسي ما برت قرآن ما برت كوس الويدينية هي فرض العين كقوها ما برت الويدينية لكن جامعة مكسر توا إحسان كلوات صمينس قصص كاسي وحي تلمام يا يقينتو sida ay u kobci karto qisadii hijradii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii asbaab uu samayn karayay markuu sameeyey soo hijrooday god buu galay abubakar oo la socdayna godka u galay ciidamadii raadacada ahee baadidoonka ahayee daydayeyna godkii bay isa soo dul taageen abubakar markaa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hadday gomadahooda eegaan wayna arkayaan meelay fiirfiirinayaan oo xagga sare eegayaan laakiin wuxuu leeyahay hadday hoos u jeestaan oo cagahooda eegaan godku meel cagahooda ku beegan buu ku yaallaa markaa weeyaan hadday cagahooda eegaan wayna arkayaan buu ku yidhi nebigu muxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam maa dannuka biithnayn allahu haaliثuhuma maxaad u malayn in allaha macana laa taxzaba aayaduna tilmaamaysa maxaad u malayn labo ilaahay saddex ku yahay يعني وحويان القوة الكبرى أود إلهي هدي كل شرط خلق قرنا بهدو يسوتك وحبكم يلي كرو سادر هدي وحلي لبو إلهي لتشرو محاض ملايين بيدي أبي بكرو إلهي با معيناه مرنا بها مرغون بالغو يلي أبي بكر إلهي با معينا ساو قد أيها الأحبة نبي قال دادك يلي وحصوصة الغضيستا أبو بكر بايمي wuxuu xoolaha haystoo dhan buu dabada ka soo maray wuu keenay markaasuu nebigu weydiiyey yaad uga timi carruurtii iyo waa dadkii maxaad u reebtay markaasuu yidhi ilaah iyo rasuulkoodaan uga yimi ilaah iyo rasuulkii ayaan uga yimi waxay tilmaamaysaa iimaankiisu halka u gaadhsiisan yihin innaga ma jiraa qof maalqabeena ama qof wuxuu haystoo dhan intuu ka baxo from zero ka soo bilaabaya وأبي بكر وحي يقين سني وإننا رميسنا هاي وحكى السؤال الله بحضين لهي طبعا لا بقول الله انت أصول الله بيضاءات هدو هليس إمكادات تجارة قليس دلو إلى هدو شيلين كيبا كم باتكو هليسة حولها كما وحبات كتاقي لهي سو اسمع تنادينا باشا قنتك السوء شرتي دي كي بقول كون هستوى قلين لها كي مليون هستوى قلين لها وحوقي هاي 1000% لهليو إلهي markuu inoo ballan qaaday 1000% iyo ka badan ba waxa laga yaabaa markaynu wax soo qaadaysanayno inaynu faraguudkood intaynu jeebka baadhno kala naqayno 5,000 iyo 1,000 iyo waxa laga tagayo kuma jiraan iyo dollar iyo waxa la bixiyo waxa daydayaysaa 10 ama 20 ama wax la mid ah raadaynaysa
macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxa weeyaan yaqiinteennan xadkii loo baahnaa gaadhin hadday yaqiintu xadkii loo baahnaa gaadho dee waxaynu aakhiro geysanaa inagala qiimo badnaan lahaa daartaynu halkan ka dhisanayno daartaad halkan ka dhisaso waxay nagala qiimo badnaan lahayd waxaynu aakhiro geysanayno walidaalik ayaa cumar yidhi la baratan baan shiro inta xoolihiisii laba u qaybiyu nus keenay maalintaasaan ogaaday buu yidhi inaan abibakar marnaba gaadhaynin culamadu waxay idhahdaan abibakar 2 goor buu wuxuu hanti haystayba ka baxay ilaahay qur-aanka wuxuu ku sifeynaya masalan dadkii saalixiinta ahaa maxaa ilaahay ku sifeeyey rijaalun waa rag iyo dumarba waa loo jeedaa oo maxaa jira laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa marnaba kama mashquuliso beec iyo shiraa ilaahay xuskii iyo salaadda oogiddeeda iyo zakada bixisteeda kama mashquuliso innagu haddii aad ku yara jirto dhiila aad u fiican aad lacag badan ka helayso salaaddeena la aqiimo bal dib u yaradhi salaadda waad tukan doontaa insha allahu ka gaadhsii horta lacagta tan laakiin kuwan ilaahay markuu sifeynaya wuxuu ku sifeeyey adduun baac mushtarkii iyo lacagtii iyo ribx la helaa kama mashquuliso ilaahay dikrigii iyo salaad la oga iyo zaka la bixiyo ayuha alaxiba waxaas waxaynu sheegnay yaqiintu inay maraatib leedahay haddaba sidee loo gaadhaaba isweydiinta leh maraatibtaasaynu u gaadhi karnaa waxaa ka mida kow ilaahay tawfiiqdiisa ilaah ku waafajiya laba waxaa ka mid ah diintu aynu aqoon u yeelanno siiba ilaahay kitaabkiisu aynu baranno oo fahamno soomaalida waxaa caan ah inay carruurta la jecel yihiin inay qur-aanka dhigtaan waxaa ka muhiimsan dadka waaweyne inuu dhigto carruurta waxaynu qur-aanka u biraynaa waxaynu isleenahay mustaqbalka ha anfaco oo adoo weynba haddaanad rumaysnayn inuu ku anfacayo maxaad kan yar ka wadaa adiga qofka weyn bay hayd inuu qur-aanka barto oo uu fahmo waxa ku qoran oo uu garto oo ilaahay sifaadkiisa iyo wuxuu ka warramaya inuu yaqiinsanno kullama adiladu ay tiro badato iimaanku wuu kordhaya marka ilaahay inaynu garasho u yeelanno qur-aanka aayadda ugu fadliga badan leh waa aayadda ilaahay ka warramaysa allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum waa acdamu aaya fii kitaab illaah waa aayadda ugu weyn qur-aanka ilaahay bay ka warramaysaa subxaanahu wa tacaala idan inaynu ilaahay si dhaba u baranno awooddiisa baranno sifaadkiisa baranno inaynu si dhaba u baranno abaalmarkiisa inaynu si dhaba u garanno aakhiro rumayno inaynu isku dayno inaan ka durugno shahwaatu nafsiga iyo adduunyada iyo xuduuda nafsiga iyo magacdoonka iyo maamustoonka iyo lacagdoonku inaanu hadafka koowaad inoo noqon hadaf koowaad inaad ilaahay heshaa inuu kuu noqdo saad ilaahay u heli lahayd ee ugu xidhnaan lahayd inuu hadaf koowaad noqdo wax laga yaaba hadaf koowaad shaqaysa inuu yahay si xoolo loo heli lahaa laakiin hadafka koowaad inuu noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala saynu ugu xidhmi lahayd laakiin imtixaanaad baa ka sokeeya lowla almashaqatu saada annaasu kulluhum haddaan dhibi jirin bay yidhahdaan dadkoo dhammi dee madax buu noqon lahaa yaqiinta haddaynu gaadhno cilmiga ku salaysan iyo xuska ilaahay aynu badinno midhaha ka dhalanayaa midhahaasi kow inaynu ilaahay jeclaanno oo khalqigoo dhan ka jeclaanno inaynu ilaahay cabsidiisu inugu weynaato oo wax kastoo aynu qabanayno isweydiinno ilaahay raalli ma ka yihi isagoo kuga cadaabaya ilaahay ma kuu cadhoonaya macsidan haddaad samayso miyaad ilaahay ka xishoonaynin wuu ku arkayaaye inay agteenna ku weynaato rajadaynu ilaahay ka qabno inuu raxmaan raxiim yahay oo janno aynu ka barino waxaa ka dhalanaya
inaad hungurayso maa cinda allaahi oo u sacyida markaa salaad cibaado qur'aan akhris waa sacyi waxaasoo dhan inaad ilaahay dadka ugu yeedho dadku inay ilaahay ku xidhmaan inaad ugu yeedho inaad ilaahay dartii naf iyo maalba u bixisid waxaa ka dhalanaya acmaashaadu inaad ilaahay oo qura uga jeedo marka sidaa la yidhahdo way fududay laakiin naftu ma ogola naftu waxay rabtaa inay magac yeelato waxay rabtaa inay maamuus hesho waxaa camalka markaynu qabanayno ma xoole ku heshid baynu u qabanaynaa si aad ilaahay ugu dhowaatid markaad samaynayso ma waxaad sileedahay dadku ha ku ammaano ha la yidhahdo inantaasi wallaahi waa inan fiican oo khayrka faafisa mise waxaad sileedahay ilaahay ugu dhowow isaga aad ajar ka heshid qofka ilaahay ugu dhowaanaya xataa haddii la caayo danka ma leh laakiin qofka aan ilaahay ugu dhowaanaynin wuxuu odhanayaa bal dadkaanu iyaga dantooda ka shaqayna haddana annagana maagayaday markaasuu iska joojinaya laakiin qofka ilaahay u socda ambiyada qur-aanka maxaa ku qoran imsaa la lahaa waa saaxir waa kadaab waa kan haddana iyagay dantooda wadeen oo ilaahay haddana leeyahay falacallaka baakhicu nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asaba naftaadaad ku dilaysaa si aad u daba socotay aad u rabto inay iimaan laga helo kuwa kan waxaa ka dhalanaya yaqiintaasi in adduunku inala liito aanu macno weyn inala yeelan waxaa ka dhalanaya adduunku hadduu gacanteenna soo galo inaanu qalbigeenna degin zuhdiga la sheegaa waa qofka oo xataa hadduu dhaqaalo leeyahay aan qalbiga xooluhu ka degine gacantiisa ay ku jiraan wuxuu sadaqaystiyo wuxuu la baxayo wuxuu qaraabo siiyo iyo wuxuu danta guuda muslimiinta ku qabto waxaa ka dhalanaya wuxuu yahay mashaakilku inaanu ku gilgilin ee aad sabirka barato adduunka mar baa wax la waayaa mar baa wax la helaa mar baa la xanuunsadaa mar baa la caafimaadaa waa nolosha adduuniya gedgedigeeda qof walibana waa dhimanaya wixii uu dhaqayna wuu ka tegaya waxaa ka dhalanaya yaqiintaasi qasruulamal rajada adduunyada inaad soo gaabiso oo markaad soo gaabiso muxuu noqonaya haddii iminka layna odhan lahaa 10 casho kadib baad dhimanaysaa maxaad yeeli lahayd ma u malaynaysa inaad adduunka fakeri lahayd hadii lagu yidhahdo 10 casho kadib waa naftu lagaa qabanaya waxaad ku soo ururi lahayd bal astakfirullah dabadi iyo salaad maxaad tukan karaysaa iyo waayo noloshii baa la soo gaabiyey qofka muslimka ee dhabta ahi noloshu way la soo gaabantay wuxuu rumaysayay tan inuu ka tegayo waan loo sheeginuune inuu dilku xukumayo ogi waan lagu odhan un daraad dhimanaysaa bas saa damba dhimanaysaa saa dambada la sheegay wadnu iskaa taagaa laga yaabaa inaad adduunka tagto saa daraaddeed qasruulamal rajadan dheere ah waad insha allah hadhow baad toobad keeni doontaa iyo sanadada dambaad diinta baran doontaa iyo beriga dambaad salaada badin doontaa dadku saasay in badan isleeyihin yaa kuu sheegay inaad sanado dambe haysato idan inay qasruulamali lagu jiro yaqiintaasi waxay keensanaysaa acmaasha saalixa wixii aynu awoodno inaynu imika ku sii dadaalno saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam khudbadeeye wuxuu yidhi quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu walard iyadoo dagaalkii lagu jiro war u kaca janno cirkan iyo dhulkanba ballaceedu yihi saxaabi timir cunaya ayaa timirtii iska tuuray isagoo le bikhin 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 waa eray marka la farxo oo kale la yidhaahdo ayuu timirtii tuuray maxaa jira baa la yidho tan inta aan dhammaysanaya haddaan sii noolaada buu yidhi waaba cimri dheer waxa la dheer midhar timira intuu dhammaynayo wuxuu rabaa ka soka inuu janno galo timirtaa inta aanu cunin inuu jannada galaa buu doonaya ayuha alaxibba yaqiintu markay sidaa u kobocdo xataa laa ilaaha ila allahdaad ku dhawaaqaysa hadday xad kaa gaadho nebiga calayhi salaatu wasalaam baa saxaabadiisii maalin ka baxay markaasay hore u waayeen dabeetana way shakiyeen dee meeshuu dhul layskaadayo laisdilaya bayde war nebigii malaa waxbaa ku dhacay waa baadadoon tageen iyadoo baadadaladayde iyo nebigiiba waxa ugu soo horreeyey qof arka meel xaa'ita beer bustaan isagoo nebigu ku jira waxa u soo galay aba hurayra yidhi ilahay rasuulkiisii waa ku weyno waa shakina dadkii adig ku daydeeya labadiisii kabood buu nebigu u dhiibay wuxuu yidhi labadaa kabood qaadoo
cid kastoo aad derbigan dabadiisa kula kulanto muslimiinta aniga daydaysi xagga daba joogto qof kastoo aad la kulanto oo laa ilaaha ila allah qiraya isagoo ah buu nebigu yidhi mustayqinan biha qalbu isagoo qalbiga ka yaqiinsan yaqiinta aynu sheegayna isagoo gaadhay qof kasta oo laa ilaaha ila allah qiro aad la kulanto u sheeg jannuu leeyahay fabashirhu biljanna buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah marna macnay leeday oo yaqiinta qalbiga ku jirta macno u samaynaysaa marna waxaa laga yaabaa inay daciifto oo aanay naarta hadhow ha kaa soo saartay marka hore baanay kaa badbaadin marna yaqiintu xad bay gaadhsiisanto saaxibu albataaqa ninkii naar xisaabta marka la keeno xisaabtiisu ay dembiyadu bateen ee la yidhaha waxba ma garanaysaa kaloo ku horo yidhi may la yidhi mid baanu kuu haynaa bataaqa yaroo laa ilaha illa allah ku qorantaa la soo saaray waa laa ilaaha illa allah ikhlaaskiiyo yaqiintu ku badan tahay saa daraaddeed bay dunuubtiisii o dhan ka xog badatay waxay keensanaysaa hadday yaqiintu fiican tahay aayaatulkown iyo aayaatulqur'aanba way ku anfacayaan qur-aanka marka laguu sheegana qalbigaagu gelayaa ilaahay khalqigiisa markaad u fiirsatana ilaahay weynidiisa iyo cadamadiisa kuu muuqanaysa ilaah sidan wax u dhisay ee adduunkan dhisay adduunka waynu iska nimi unoo dabeetana wax caadiyo inoola ekaado waxaad qiyaastaa iyadoo aan dunida cadceedi jirinoo subax qudhona halkaa ka soo baxdo dadku ma meel kalu u kici lahaa mise iyadu maa la daawan lahaa adduunkan ilaahay baa abuuro saan u dhigay aayaadkiisa markaad aragta markaa waa inuu ilaahay weynidiisa ku tustaan iyo ilaahay farsamadiisa iyo ficilkiisu suu yihi ama haddaan yaqiintu jirin kuwaas ilaahay wuxuu ku tilmaama wafi lardi aayaatun lilmuuqiniina baa ilaah yidhi dhulka iyo waxa khalqiga jooga aayaad baa ugu sugan kuwa ilaahay yaqiinsan kuwa kalena waka'ayin min aayatin fi الsamaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun tiro badanaa baa ilahay yidhi inta aayad cirka iyo dhulkaba ka muuqata oo ay soo marayaan iyagoo haddana ka sii jeeda baa ilaahay yidhi waxba aanay ugu fillayn yaqiintaadu markay fiican tahay aayaddu ku anfacaysaa iimaankaagu markuu xadkaa joogo ayay aayaddu ku anfacaysaa aayaadku waxay ku anfacayaan ama yaqiintu waxay kugu bixinaysaa mushkilad kastoo kugu dhacda inaad sabirto fasbir ina wacd allaahi xaq walaa yastakhifannaka aladiina laa yuuqinuun baa ilaah yidhi sabir baa nebi maxamed lagu yidhi ilaahay wuxuu kuu yaboohay waa dhab yay ku fudaydsanin baa ilahay yidhi kuwan aan yaqiinta haysanin kuwan aan yaqiinta lahayni yay ku fudaydsanin idan ninka muuminkii ama gabadha muuminadda wuxuu rumaysay fa inna maca alcusri yusra inna maca alcusri yusra wuxuu rumaysay inuu ilaahay tala saarto subxaanaه wa tacaala wax kasta oo dhaca wamaa lana an laa natawakala calى allahi waqad hadaana subulana saa daraaddeed aliqdaamu cala ashadaa'id bay yidhaahdaan yaqiintaasaa ku bixisay inay dunidao dhan saxaabadu ka hor tagto labadii dowladoodee dunida ugu waaweynaa inay mar qura la wada dagaalamaan muddo yaroo dhowr iyo 10 sannadoodee dowlad 1,000 sano soo jirtay inay baabi'iyaan bershiya oo 1,000 sannadood ka badan dowlad ahayd 15 sannadood bay kaga takhalluseen romaniska intii ugu badnayd wakhti yar bay ka qaadeen muddo aan aad u badnayn 80 sano meelaha taariikhtu markay maraysay min china ilaa sbain bay ka telinayeen shadaa'idoo dhan dunida miyaan dhibi jirin miyaan ciidama jirin kumaankum ciidana baa joogay yaqiin bay ku dhaafeen iyo iimaanka ilaahay rumaysnaayeen iyo xaqay u socdeen ayuha alaxibba waxaan ku soo koobaya ilaahay aan baranna subxaanaه wa tacaala oo aan baranna sifaadkiisa iyo weynidiisa iyo cadamadiisa iyo jalaalkiisa aan baranna ilaahay awooddiisa iyo waxbixintiisa aan baranna ilaahay iyo abaalmarkiisu siduu u weyn yahay jaziilu nicmati iyo waxa uu nimcayna siiyey aan baranno oo garanno adduunkan in ilaahay maamulo gaal iyo muslimba in ilaahay maamulo aan ogaanno adduunkan allaha abuuray baa ka taliya kuwa kibray bay culammadu yidhahdeen baa kaneeca dishay xabad kaneeca ah boqoraa oo dadka laynayey ayaa midh kaneecii dilay idan aan yaqiinsanna tahay
taasi maxay ku imanaysaa inaynu ilaahay diintiisa u dhaga nuglaanno oo baranno oo ubadkeenna barro oo ku tarbiyayno inaynu ogaano arsaaqda ilaahay baa bixiya duldul laguma helo soomaaliya fadhiiso weyde sababtuna waa maxay bariiskii baa meel kasta intay ka heleen ku qanci waaye kii yurub tegey wuu soo socdaa kii xagga joogay wuu sii socdaa kii soomaaliya joogay wuu ka sii socdaa kii xagga joogay waa ku sii socdaa qolo walba waa soconaysaa un meel laba la fadhiisan waa kaanama arsaaqdu wareerka ay ku jirto in la wareero unoo la ordo ay ku jirto waxaan leenahay yaqiinteennu waxaynu u baahannahay inaynu diinteenna intaynu baranno si fiican u fahmno aynu ku dhaqanno yaqiintu waa aqoon rumayn isu beddesha dhaqan iyo noqota waxuu qofku noloshiisa ku maamulo sala allahuma calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin